سو صدح سنة كوري وقول عادي عكشة كراد ولا هيك ران نقول نحكي بلاوتي جورا صاحبة هنجرنا جود وحالة مقعدة أصلي مركا جود رشلان بود وأنا راي مركا بس جود مركا رشلان بود أنا راي مركا أنا هاي جود صاحب سكروح هنجر نفط أنا قاعد أحس بس ما أنت هل دروع ده سوق كذا نايدن سيدو كلا سوق كذا إذا ما أنت هل حجاب سوق كذا ناس سيدو كلا إذا نو سوق كذا إذا سيدو كلا وحي سوق كذا ناس ويسوق كذا جرت مركي شلان بود قاري طبعا كنا كليا على راحة ها طبعا كنا كليا جمعية مركي ما جرت أنا ده واحد قد وسينجر إذا وحي يسوق كذا ويسوق هذا جرت مركان أكو سوق كذا ركز كنوع قاعد جرنا كواس سيدو كلا سكنوع حجاب بس سيدو كلا سكنوع مركا ويلا صاحبنا هاي أسنا رشلان بود واي wiilka magaciisa liibaan aan lahaa muddo waxa isla soconay 3 sano waxaan la asliya miyaha wiil oo isku degaan aan degantiin ay shukaansanaa markaas tiri magaciisa waxaan la liibaan aan lahaa intuu degan yahay Shilaanbood oo degan yahay dukaan meesha ku yaalo weyn iyaga iska la dukaankaas habeenkii kada maalintii meesha joogaa markaas tiri dukaankaas waa aqaan laakiin wiilka ma aqaani wiilka maalin jimca iyadan iyo imaad amarti qaade asna oo imaade sidii aan isku baray meesha isku barteen bas wiilkii gabadha markaa isbaray meesha biigu wardambeeyso waxa ku sheekaysi jirnay leelaan waa taqaanano leelaan ku sheekaysi jirnay xilli leelaan ku socday ahayd marka wiilka 3 sano isla soconay marna isbar laakiin wiilka muddo isna qaanay wiilka barashada hore marka waxaan wiilka waxa isku baranay gawar saaxiiba aan ahay marin la dhahayo walaalkeeda saaxiib la aha marka saasa isku baran waxay tiri wiil oo maxaa la dhahaa liibaan la dhahayo oo Shilaanbood joogo ku jecel markasta aan kula hadlaa as agteedu fadhiya marka lambarkaaga soo siinay tiri haduu ku soo wac ka qabo wiilka marka sidaa isku baran bis hayaa dhahay muddo 3 sano isla soconay gabadha marka saaxiibadaada waxa sidaa kuma qayaanayso ma sha Allah wiilka markasta uu soo wici jiray markasta maxaa la habeenkii waa sheekaysi jirnay 2 saac iskula hadalno waagaan ugu bari jiray bis gabalkaan ugu dhac jiray marka Ilaah kuma darnaas habeenkii walaalay markaa seexanay hooyaday marka leelanku waa la kala siiyo magta leelanku waa la kala siiyo jiray markaas aan gabadha ma seexato soo fiiro oraday hooyo bas bari jiray markay wiilish walaalay seexdaan iyo hooyo markay seexdaan leelanku isgelina saa la hadlay waaga bigu bariyaaba soo wixii 12 kana quraaca warka sameyn jir guriga hooshiisa qaban jiray maalintii dhan isku wardi jiray habeenkii la isla hadli jiray bas wiilkaas wax barasho ku jiray ana wax barasho ku jiray laakiin asi jaamacada wax yar ugu dhinaad bas ani iskuul waxa saadheegana laakiin asi jaamacada wax yar ugu dhinaad markaas wuxuu dhahay isu hayaa dhahay waa shaqaysana wax fiican qof maanta meel iska soo bixin karo aan qana hayaa dhahay 3 sano sano qaadatay jimco walba way imaan jiray gurigeena uu imaan jiray oo marti qaadi jiray ma sha Allah familkeyga dhan oo ka saa gurigeena walaalahay waxa dhan way is yaqaaneen qof oo macnaha banaanka ugu tagi jiray ma gurigeena ugu imaan jiray mushkilada gabadha saaxiibadeeda maalin jimca ay imaaday markay imaado waxaan dhaasliyaa meeha wiil Shilaanboodkii ma liibaan la dhahayo isna qaana waa ku baraa markaas tirahay wiilka meesha jooga aan dhahay dukaan weyn meesha ku leeyihiin ma taqaanid miyaa markaas dukaankaas weyn waa aqaan laakiin wiilish waa aqaan wiilkan oo liibaan la fadlan waxaan ka codsanayaa inaa markaa dhameysato muuqaalkan YouTube-ka musajacay iyo qiro subscribe loo dhahdo page-ka soo TV-na aad follow soo dhahdo aad u mahadsantahay aqaanay tiri wiilka maalin jimciyay maaliyadan sidii isku baray bas maalinta isbare galabteedi habeenkii isla hoodeen martay ahay ma jimci ahayd Shilaanbood isku raacay Shilaanbood markay isku raacaan habeenkii waxaan arkaa Ilaah kuma darnaade teleefkiisa mashquul oo leelanka dhahaa iyada waxa sidoo kale mashquul saawaca mashquul iyada waxa mashquul marka koolweed ka dhan waa iska xiran ilaa koolweedka dad ku furan yahay waa arkay ma dad lagu soo waco koolweed ka dhan iska xiran muddo isbuuc markay saas u ahayd koolweedka dadkana iska xiran oo isbuuc soo wiceenin waxarkii dib waxa maqlaa liibaan iyo asli waa isla baxsadeen isoo meersanooyay saas u jirtaa isbuuc isla ma hadlay markii wiil saaxiibkiisa oo isku fiican nahay ay soo sheegay oo asna liibaan la dhaho
asaga waxa isku aaday wixiisa oo ilaahay isku agdhigay iyo gabadhii isbartayna isku aaday macnaha soo heshiino wuxuu dhahay xoogo qof isku toosan insha Allah intaas isoo saayda dalabka dhankiisa ka imaaday